anigoo ka soo waramaya maanta jooga jidka ugu weyn ee kala qaybiya Yurub waliba dhexmara Centraalka Luxembourg jidkan dalkan oo loo yaqaan dalka wadnaha Yurub gaadashas waxay u kala goosheen dalka Faransiiska Belgiumka sidoo kale dalka Jarmalka السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن ومركلة يا درحمن دولار فلوجيس كانال كداونيسان هدي أد كانال كل عصوب تهاي وحن كهذا البنية طبعا إن سبسكرايب صارتو سيدو كله لايك شير نص أصحاب هذا ما تروح بدأ يشويجن ويشوي قروح بدن حليان صباحي طبعا فلوج ديارين يرومتشرين لكن إيش قياسك هذا واحد رامس طبعا هراء رحيجا إن شوي جماعتي هاي شوي كدوان شوي يدي هراء أو رب فربدن دايو شويغانina waa shawi qurux badan horeynu sii socon doonaa maanta waxaan joogaa Centraalka garoonka stadiumka dalka ugu weyn ayaan joogaa kaasoo si lacag lagu galayo dabcan bal waxaynu booqan doonaa halkaasi sidoo ogtihiin dalka Luxembourg waxa weey dalka koowaad ee hadda ugu qanisan dunida sidoo kale dalka Qatar ee koobka World Cup lagu qabanayo ayaa dalka labaad ee dunida ugu qanisan waa laba wadan oo yar waxyaabo iska sawaabiya dalka Luxembourg qaybta maanta aan joogno waxa ku yaala stadiumka lagu daawan doono World Cup-ka kaasoo si caadi ah lacag ahaan lagu gali doono roob ayaa daaya waxa rajaynayaa inaad faloga si qurux badan daawanayso waliba maalin qurux badan qaadanayso socodkan maanta xilligan soo bilaabayay dabcan falogani wuxuu ahaa mid aan ugu talagalay dadka ku xidhan bartayda ما isleedahay sama aaminsantahay in dalkan Luxembourg garoomada stadiumka ee waxa weey World Cup-ka lagu galayo lacag waxaynu tagi doonaa garoon kamid ah garoomada dalka ugu waaweyn kaasoo lacag lagu galayo World Cup-ka Qatar iyo Luxembourg waxay iska sawaabiyaan waxa kamid ah shirkadaha dhismayaasha iyo waxa weey horumarinta ganacsiga dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo la halmaala dab ahaantii maanta jawigani waa jawigii la oran jiray shaqaasig jawi lamida ma jiro waxaan joogaa Centraalka halka ay ku yaalaan shirkadaha ugu waaweyn dalka intooda badan xaafadan Kluqti waa xaafad kamid ah xaafadaha ugu waaweyn dalka wana xaafada ku yaalo stadiumka ama garoonka ugu weyn dalka ee World Cup-ka lagu daawanayo I'm hearing what you say but I just can't make a sound sidoo kale garoomada lagu daawanayo World Cup-ka boqolkiiba 90 dadku waxay ku gali doonaan lacag maadaama inkastoo maashishka ugu adag ay ka lacag badan yihiin maashishka ama wareega koowaad ee eeda iyo biida sidoo kale stadiumka Luxembourg waxa weey waxa la furay sanadkii la soo dhaafay dabcan inkastoo nasiib darro sanadka World Cup-ka aan dalkan ka qayb qaadanaynin oo ku soo hadhay xilligii israafraabka Yurub gudihiisa sayni muuqata halkan waxa ku yaala shirkadaha dalka ugu waaweyn intooda badan ayaa ku yaala xaafadan soo kale waxa ku yaala stadiumka dalka ugu weyn ayaa ku yaala stadiumkaasi oo horesan nigu soo sheegay dalka Qatar waxyaabo badan ay iska sawaabiyaan dabcan waxaad ku arki doontaan diroon xagga sare ah oo xaafadani waxa weey dushayna ka tusi doontaa فلوجن waxaan ugu talagalay dabcan فلوج daqiiqado kooban qaadanaya xilliga soo baxay dabcan roob ma jirin sayni muuqata laakiin hadda roob badan baa daaya aniga in ka soo xidhanahay dharkii roobka loogu talagalay oo jawiga dalka aanu permanent yahay wax joogta oo xilli kasta isbedela ayuu yahay sadaradeeda qasab waxa weey hadii la galo xilliga winterka ama qabobaha in markaste dharkaagu toos ku diyaarahadaan waxaan joognaa shirkadaha ugu waaweyn dalka dhismayaasha halka ay ka dhisan yihiin ama kaarteega xaafada ama degmada ay ku yaalaan soo kale waxa ku yaala garoonka stadiumka ee dalka ugu weyn ayaa soo kale ku yaala asxaab badan oo hoos waxaan arkay qoraal liiga soo weydiinayay falogyadii la soo dhaafay dabcan usbuucan dhexdiisa ayaa waxaan rajaynayaa inaan niga soo jawaabo su'aalihiina si u dhan yihiin labada loo galaado roob badan ayaa inta galay horay baan u sii socon doonaa ni muuqata halka waxa ku yaala Euro Bartinal Capitalka oo ah xafiisyada ugu waaweyn ee Yurubta kuwaas ay leeyihiin kombaniyada logistiga internetka sidoo kale dropshippingka
iyo waxyaabaha la halmaala waxaan rajaynaya dabcan inay yihiin shirkadaha ugu waaweyn ee ka yaala dalka Belgiumka, Luxembourg iyo dalka Germany sidoo kale. sidoo kale agagaarkayga waxaa ka muuqda shirkadda Intesa oo ah shirkadda ugu weyn iyaduna waxa weeye ka shaqeysa maalgelinta iyo waxyaabaha la halmaala ee dalalka Yurubiyaanka. sidoo kale halkii waxaa ku yaala Kolosh oo ah meesha ugu weyn ama supermarketka ugu weyn ee dalka laga adeegto oo qaybo fara badan oo kamid yahay McDonald's-ka iyo maqaaxiyo badan ay ku yaalaan. hadda waxaan joogaa Khuda Kolosh oo ah supermarketka ama meelaha dadka laga adeegto meelaha ugu waaweyn ay ku yaalaan meherad fara badan oo kala duwan ama ganacsiyaal kala duwan oo ah sida cafeteriyaal, restaurantiyo, meelo dadka lagu iibiyo iyo meelo fara badan. dabcan vloggeena hore ayaan sii wadan doonaa waxaynu gali doonaa gudaha magaalada inkastoo roob fara badan uu da'ayo oo vloggeenana uu hadda bilow yahay. waxaan rajaynaa dabcan inuu vlog kooban noqdo oo daqiiqado kooban qaata si aan gudaha magaalada ugu sii galno. waxaan rajaynaa dabcan inaad kanaalka subscribe saarto sidoo kale like saarto si aan vlogyo qurux badan aad halkan uga hesho. asxaabta Instagram-ka igala soo xidhiidha intooda badanna waxaan rajaynaa dabcan soo dhaqsaha badan inaan qoraaladiina insha Allah maalmaha soo socda uga soo jawaabo. ishqiyaas horeynu sii socon doonaa. dabcan sayni muuqata Luxembourg waxa ka socda dayactirid fara badan oo ah jidadka, dhismayaasha iyo qaybaha kale ee la halmaala. waxaan rajaynayaa Luxembourg si dabcan qadar oo kale inay maruu rajo ka leedahay dabcan inay World Cup-ka lagu qabto oo World Cup-ka inkastoo population-ka ku nool dalkani uu yar yahay 600,000 uu yahay gabigiisaba 55,000 600,000 ilaa 55,000 ayuu ku dhow yahay. dabcan waxaan rajaynayaa Luxembourg dayactirida faraha badan ka socda dalkani inuu sidoo kale isaguna uu ka mid yahay mid ka mid ah dalalka u sharaxa World Cup-ka ee maruu rajaynaya qarniyada soo socda in lagu qabto. sidoo kale dalkani waxa kamid ah meelaha ugu caansan taalooyinkaas oo ah taalooyin dheer oo ku yaala ilaa 6 meelood oo ka tirsan dalkani. taalooyinkaas ayaa ah taalo mid kasta oo iyaga kamid ah ay xambaarsan tahay taariikh qooniya, wax gooniya oo u gaara. sidoo kale waxaa jira xilliyo gaar oo la booqdo iyo waxa weeye lacago khaas ah oo u go'an lagu galo. sidoo kale dalkani taariikhda Faransiiska marka la eego waxa uu ku leeyahay qayb kamid ah waxa la xasuustaa in Fianden gobolka ee Luxembourg ka tirsan uu Victor Hugo imiday sanadadii 1800 xilligii lagu jiray oo isagoo joogay muddo 2 maalmood ah. taasina waa mid kamid ah taariikhaha dalka ugu caansan ee ay ku aftirsadaan xilliga laga hadlayo taariikhda qoraaga caanka ee Victor Hugo. ugu dambeyn waan ka soo baxnay meelihii ay ku yaaleen shirkadaha dalka ugu waaweyn inkastoo dalka 90% dhismayaasha caasimadda ku yaala intooda badani qaybaha kala duwan ee caasimadda uu yahay shirkado kala duwan because cashuurta Luxembourg ayaa ah sala qiyaaso cashuur ama input ay ka qaadaan shirkadaha shisheeye ayaa cashuur xoog u jaban. sidoo shirkadda Microsoft iyo Google-ka iyo shirkadaha akoobanka ugu waaweyn ee dalalka China, America sidoo kale Ingiriiska intooda badan waxay ka shaqeeyaan halkani ay ka shaqeeyaan kana hawlgalaan cashuurta dadkeeda. dabcan halkaas waxay niga muuqdaa stadium-ka ugu weyn Luxembourg oo ah meesha cadaanka ee gadaasheeda ka muuqata. dabcan waan tagi doonaa inkasta oo lagu daawanayo World Cup-ka waliba lagu galayo lacag lagu galayo ma aaminsan tahay in World Cup-ka meel qadar ka baxsan lacag lagu galayo. ishqiyaasag sababta stadium-ka ama garoomada waaweyn ee caalamka intooda badan waxaa la sameeyaa in lacag lagu galo oo taageerayaasha xulalku ay ka soo qayb galaan. sadaradeed waxa ku sugan saacadaha qaar boqolaal taageerayaal ah oo ka soo qayb gala halkani. horeynu sii socon doonaa waxaad kaloo arki doontaa vlogga dhexdiisa wadooyinka ugu waaweyn ee Yurub u kala gudba iyo wadamada ay u kala baxaan oo horey ku arki doono. It's true.
dabcan gadaasheeda waxaa ka muuqdaa shirkadaha ama dhismayaasha ugu waaweyn ay shirkaduhu lahaayeen kadib markaan ka soo gudubnay waxa inoo suurto gashay inaan qaybtan u soo gudubno halkaa waxaa ka muuqdaa stadiumka dalka ugu weyn Luxembourg inkastoo stadiumkan aanu ahayn kii Portugiisku nagu reebay xilligii reebka Yurub oo stadiumkaas ku yaala centralka caasimadda Luxembourg laakiin kana waa stadiumka ugu waaweyn dalka mid ka mid ah oo ku yaala xaafadda Holderich sidoo kale taaladani waa taalo dheer oo ah taalooyinka taariikhiga ah ee dalka inkastoo casriyeyn iyo dib u habeyn fara badan lagu sameeyay halkan waxaa iniga muuqdaa jidadka ugu waaweyn ee Yurub u kala goosha jidkaasi waxa uu kala geeyaa dadka ama dadka ugu kala safraan dalalka Jarmalka Belgiumka iyo Faransiiska waxaad arkaysaan mashquulka ka jira halkani waa jidka ugu weyn ee Yurub kala qaybiya ee Luxembourg dhexmara maadaama wadanka loo yaqaan wadnaha Yurub sidoo kale waxaan rajaynayaa maadaama indhaha ay biyo fara badan iga galayaan roobkan ayaa ah roob isa qunyar socda oo waxa weeye jidka inta badan aan qoynayn waa anigoo ka soo warramaya maanta jooga jidka ugu weyn ee kala qaybiya Yurub waliba dhexmara centralka Luxembourg jidkan dalkan oo loo yaqaan dalka wadnaha Yurub geedaashaas waxay u kala goosheen dalka Faransiiska Belgiumka sidoo kale dalka Jarmalka oo xuduud la ah iyagoo si kala bixi doona dalalka kale Yurub qayb kamidana wadankan ay ku nool yihiin boqolaal qof ama kumanaan qof oo loo yaqaan foqontaaliyeeqa ama dadka xuduudaha ayaa Luxembourg ka shaqeeya subaxiina waxa soo shaqo taga dad ku dhow 60,000 ilaa 40,000 oo shaqaale ah kuwaas oo ka yimaada wadamada jaararka ee xuduudada Luxembourg waxaan joogaa centralka jidka kala qaybiya bartamaha Yurub ayaan joogaa dabcan sagalaashada ka muuqata ee u jeedaan dalka 90% waxa ka socda dayactir kaas oo ah wadooyinka dhismayaasha iyo meelaha beeraha ee jardinka guryaha hoostooda ku yaala sidoo kale meelaha kaymaha waxa marka soo ka socota dayactir xooga taas oo dalkan ugu tala galay qurxinta iyo hagaajinta dalka sidoo kale sanadka Luxembourg waxa yimaada kumanaan kun oo qof oo soo booqdayaal ah ama visitor ah oo ka kala yimaada daafaha dunida adiga laftarka uu ka mid noqon kartaa dadka soo booqda Luxembourg ee yimaada una soo daawasho taga taariikhaha soo jireenka ah ee hay'adda UNESCO ku sheegtay dalkan dabcan qaybtaasi waa qaybta lagu shaqeeyo xafiisyada garoonka dabcan waa qaybta u qaabilsan kiibabka garoonka soo galaya security meesha ka shaqeeya sidoo kale iyo qaybaha kale ee khuseeya garoonka sidoo dhan yahay qaybtana waa stadiumkii dalka ugu weynaa waxa weeye waa stadium Luxembourg dabcan ishqiyaasaka stadiumku wuxuu haystaa barxad weyn oo baarkin ah oo qaybo badan kaga taala sidoo kale stadiumku waxa uu leeyahay baarkinka qaybta hoosta oo gaariyaasha hoosta ay galaan sidoo kale taageerayaal oo ah xulalkii maanta ciyaar ee World Cup-ka qaar kamid ah ayaa ku sugnaa saacada ka hor inkastoo hadda World uu garoonku furan yahay oo albaabadiisa niga jeeda laakiin taageerayaashu xilliga way dareereen maadaama saacadu xilli dambe tahay ayna ku soo suuqayso 6 fiidnimo Yurub marka la joogo gudaheeda waxaan joogaa loogada ama Stade Luxembourg waa loogada ugu caansan ee ku taala garoonka ishqiyaasag loogadan ayaa ah looga haldhig u ah garoonka sidoo kale qaybta lagu ciyaaro kubadda golfta ayaa ah qaybtaasi oo dabcan jidkeenan ka talowna khasabinigu ah haddii aan tagayno falagu inkastoo gunti iyo gulaanadkii ku dhow yahay waxaan rajaynayaa inaad qaybo kale oo stadiumka halka hore ka sii aragtaan halkan waxay niga dhex jeedaa miskiinka raaya falagii nii duwayay dabcan waxaan kaa dalbanayaa kanalka inaad subscribe saarto like saarto si oo asxaab fara badan u sii gaadho anigana waa iga diyaar falag qurux badan sidoo kale iyo video qurux badan wadawata European League mid ka mid ah garoomada European League lagu ciyaaro xilliga tigidhada la iibsanayo dadka aan laxaadka ugu dhameystirnayn halkaas ay ka iibsadaan tigidhada qaybtan oo dhawaa qaybta tigidhada laga iibsado sidoo kale qaybta hore waxa ku taaleedana qayb kale oo tigidhada laga iibsado dabcan sidoo kale waxa aragtaa waxyaabaha logistiga u qaabilsan garoonku wuxuu leeyahay barxad aad u qurux badan oo ah barxad weyn dabcan barxadaasi waa barxadda garoonka dhankiisa dambe ah dabcan waa barxad saayid weyn oo saayid u qurux badan sidoo kale waxaan rajaynayaa barxadani inay tahay barxad ay taageerayaashu kusoo kala faylaan
xilliga half time-ka ama xilliga garoonka buuxsa soo kale shaashada dibadda loogu soo xidho dabcan follogeeni maantu waxaan rajaynayaa intaas inuu kusoo gabagaboobay waxaan rajaynaya soo kale in kanalka subscribe saarto like asaarto videoga asxaabtadan u sii share garayso kanalka waa daawanayso kanalka Abdiraxmaan Dollar waa aniga Abdiraxmaan Dollar intaan follow-gan lamida ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nooli kulante salaamu alaykum